السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي nagala socota channelka ma ogtahay waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhair. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar jeliskana furo si aad u noqotid qof ugu horeeya ee daawada barnaamijyada aan soo gelino. Sheekada maanta waxa ay ku saabsan tahay nin faqiir ah iyo nin xaakim ah daawasho wacan. waxaa jiray nin faqiir ahaa ilaahayna siiyay ciyaal badan maalin maalmaha ka mid ah ayuu tagay nin ay saaxiib ahaayeen si uu kaalmo weydiisto ninkii saaxiibka ahaayeen waa uu ka cudur daartay isagoo ku yidhi xaalka waad aragtaa saaxiib sanadkan abaar xun baa ina heshay waxaan ku siiyo oo quudka ciyaalkayga ka badanna ma hayo laakiin waxaad u tagtaa hebel isagaan celin qof wax weydiistay ninkii faqiirka ahaa waxa uu waajahay gurigii ninkii loo tilmaamay markii uu gaaray ayaa waxa uu arkay ninkii oo daweynaya neef xoolaa oo gaboobay inta uu yaabay ayaa uu isweydiiyey ninkan isagoo waxaas oo adhiya haysta ayuu ridan gabowday amba neefkan xoolaha ee gaboobay daweynaya oo uu ka maarmi waayey ninkaan saaxiibka ahay nin bakhayl ah ayuu isoo tilmaamay waxa uu ku noqday ninkii ay saaxiibka ahaayeen ee soo tilmaamay wuxuuna uga sheekeeyey wixii uu soo arkay saaxiibkiina waxa uu ku yidhi ku noqo oo xaajadaada u sheego qof wax weydiistay weligii ma uusan celinin ninkii faqiirka ahaa isagoo yaaban ayuu soo noqday markii uu gaaray guriga ayuu arkay ninkii oo carruurtiisa kula dardaarmaya inay ka soo ururiyaan dhulka midhaha qamandiga ah ee ka daata marka ay ridqayaan ninkii inta uu dib u fikiray ayuu isweydiiyey nin intaas oo tan oo qamandi ah haysta ee haddana iska dayn la midhaha dhulka ku daata ninkii faqiirka ah waxa uu ku soo noqday saaxiibkii waxaana uu u sheegay wixii uu soo arkay saaxiibkiina waxa uu ku yidhi intii markii hore uu ku yidhi ku noqo saaxiib oo baahidaada u sheego qof baahan weligii ma uusan celinin ninkii faqiirka ahaa raadkiisii ayuu dib u raacay markii uu gaadhay gurigii ninka waxa uu la kulmay ninkii oo amraya reerkiisa in ay naaqusaan fayniiska u baxaya si uu u hayo gaasku muddo dheer ninkii faqiirka ahaa oo iskula sheekaysanaya wallaahi ninkan bakhaylnimo ayuunbaa usii siyaadaysa waxa si kadisa albaabka reerka uga soo baxay ninkii waxaana uu arkay nin albaabka taagan waxa uu kula soo booday su-aal ah maxaa dhacay waa markii saddexaad ee aan kugu arko gurigayga ninkii faqiirka ahaa waxa uu ku jawaabay haddaan run kuu sheego qof iska miskiina baan ahay baahina way qabatay nin aanu saaxiiba nahay ayaa kaa soo tilmaamay waxaana uu igu yidhi ninkaasi qof baahan weligii ma uusan celin markaan ku yimi markii koowaadna waxaan ku arkay adigoo neef xoolaa oo xanuunsanaya daweynaya adigoo xoolo badan haysta markii labaad ee aan kuu yimidna waxaan ku arkay adigoo carruurtaada kula dardaarmaya in ay ururiyaan midhaha qamandiga ee ka daata marka ay ridqayaan iminkana waaba adigan reerkaaga amraya inay naaqusaan faynuuska si uu in badan u hayo naftayduna waxay iigu sheekaysay in aanu samayn karin waxaas qof bakhayl ah mooyaane ninkii maalqabeenka ahaa ayaa dhoola caddeeyey wuxuuna ku yidhi neefkii xoolaha aan daweynayay wuxuu ahaa mid irmaan oo caano badan in badanna waanu ka faa'iidnay caanaheeda waxaa ii cuntami weyday in aan ka tago markay gabowday qamandidiina waxaan carruurtayda ku yidhi wixii idinka daatad soo ururiya sidaana ugamaan jeedin inaanu u baahannahay intii daadatay ee qofku ma garanayo cuntada uu cunayo midda uu ilaahay barakeeyey faynuuskana waxaanu yidhi naaqusa si uu in badan gaasku noo hayo sababtoo ah waxaan ahay nin hablo badan dhalay shakina kuma jiro in hablahaygaasi mar uun guri yeelan doonaan waxaana laga yaabaa mid ka mid ah inuu nin faqiiri guursado oo aan awoodin waxa aan awoodo anigu oo waxaan baryay yaryaraysiga iyo maamul wanaagga guriga ninkii faqiirka ahaa aad ayuu u yaabay waxaana uu garowsaday inuu hortaagan yahay nin xakiim ah wuxuuna u aamusay sidii nin uu shimbir madaxa ka saaran yahay ninkii maalqabeenka ahaa ayaa dareemay layaabka ninka faqiirka ah intuu gacanta qabtay ayaa gurigiisa geliyey waxa uu siiyey wixii uu u baahnaa oo dhan barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku eegahay intaaynu ku kulmi doonno barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu